بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قروحda badneed sharafta lahayd sidee tihiin ma wanaagsan tihiin alxamdulilah anaga waa wanaagsannahay maasha allah. ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryayaa dadkeenii inaga dhintay isbuucyadii ugu dambeysay inta aynaan ogeyn ee kale iyo intii ka horeysaba ilaahay subxaana watacaala ha u naxariisto qabrigooda rooda min riyaadul janna ilaahay ha uga dhigo. ilaahay waxaan ka baryaynaa marti la jecel yahay ilaahay ha ka dhigo. qabriga ilaahay waxaan uga baryaynaa su-aalaha allah ha u fududeeyo. qabrigu waa cidhiidh ilaahay waasac ha uga dhigo, waa kulayl ilaahay qabow ha uga dhigo, waa mugdi ilaahay ha u iftiimiyo camalkooda wanaagsan camaladooda wanaagsan allah ha u soo xaadiriyo. ilaahay waxaan ka baryaynaa kitaabkooda munasalka ilaahay gacanta ha uga dhiibo, gacanta midig ha uga dhiibo. kuwa garabka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam kasoo baxa ilaahay ha ka dhigo, ilaahay ha u naxariisto, ha uga dhigo qabriga beeraha jannada ka mid ah oo ay nagaga maarmaan oo ay dhahaan ilaahayow maxaan mar hore adduunka dhibkiisa uga soo tegi waayey. ilaahay ha uga dhigo, ilaahay ha wada naxariisto, eheladii iyo qaraabadii samriye imaan allah ka wada siiyo kulligood meel kastay daafaa caalamka joogaan. innagana waxaan ilaahay nooga baryayaa inta xanuunsanaysa ilaahay ha caafiyo, inta caafimaadka qabta allah ha u siyaadiyo. ilaahay waxaan ka baryaynaa gadaashooda ilaahayna ma fidmeeyo. adduunkani waa daarul itixaam. ilaahay waxaan ka baryaynaa haynoo fududeeyo kuwa aakhiradooda iyo adduunkoodaba yacni adduunkan aakhira uga faa'iideysta inta ay adduunka nool yihiinna uu u dhaqma yacni saaca bisaaca ugu dhaqma. ilaahay haynaga dhigo saacadda aakhiradooda iyo saacadda ay adduunyadooda maarta waqtigooda gelinayaan ilaahay kuwa saasa haynaga dhigo allahuma aamiin. intaa markaan ka gudbo aad iyo aad baan idin wada salaamaya walaalahayga qaaliga sharafta leh dhammaantiina anigaan idinkala reebeynin. asxaabta cusub waxaan leeyahay soo dhawaada, gacmo furan qalbi furan kusoo dhawaada. walaalihii hore iila joogana aad iyo aad ayaad u wada mahadsantihiin. mar walba waxaan israahdaa barnaamijyadii xaqiiq aan qorshaystay inaan ka hadlo oo ilaa iyo hadda aan arko inayna maaragtay mujtamaceena soo dadkeena soomaaliyeed inaysan ka hadlin. barnaamijyadaasaan insha allah islaad ka hadashid haddii ilaahay yiraahdo, haddii oo waqtigu ilaahay ii fududeeyo oo ay ii fududaato inaan maaragtay dee aad ii aragtaan maaragtay ma islaanta tan daaha gadaashiisa kasoo hadlaysa aad maaragtay life u aragtaan insha allah waa ku dadaalaya haddii ilaahay yiraahdo. ilaahayna maaragtay amuraha inoo wada sahlo, adduunkan kala xidhxidhmay xanuunkan aafeeyey meel walbana ilaahay haynaga saaro. annaga hadda waa taas magaaladayadii quruxda badnayd waxaa lagu jiraa bandow baa lagu jiraa, bishii labaad baa noo socotaa. ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay wax walba sidiisii horeha ku soo celiyo. intii u dhimatay xanuunkaasna ilaahay maaragtay ha u naxariisto, inta xanuunsanna ilaahay dembi dhaaf ha uga dhigo, intaana weli maaragtay xanuunkaasi helinna ilaahay inooma keeno allaahuma aamiin. adduunkana sidiisi ilaahay inoogu soo celiyo inaynu ducaysano weeyaan. waxaana waa maaragtay waa wax xag rabbi ka yimi. cid si kastoo la yeelo, si kastoo dowladaha quwadda le ilaahay baa quwad leh isku dayaan inay ka hortagaan waxba laga qaban kari waa. ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay iskama celin karayno, awoodiisa ma xamili karayne ilaahay haynoo fududeeyo allaahuma aamiin. marka haddaan usoo noqdo magaaladii aan aadka u jeclaa, ilaahay waxaan ka baryaa meel kasta maaragtay ardul amaana ha ka dhigee magaalada saasay banda u jirtaa. xilligaan aniga baxay waa xilli iska bayahayd adiga shantii intii maaragtay la gaadhin adiga afartii shanta intii udhexaysay bay iska ahayd xilliga dadka guryaha iskaga noqnoqdeen oo maaragtay xilliga cashada iska diyaarsanayeen bay ahayd. marka waxaan ku dadaalaa salaada fajirka markaan tukado, haddaan tukanayo haddaanan tukanayninba waxaan ku dadaalaa subaxii markaan tukado aan iska ducaysto. haddaan maaragtay tukanayo, haddii aanan tukanaynin de markaan xaajooyinkayga iska qabsado iska ducaysto ilaahay iska baryo inaan maaragtay socdo baan ku dadaalaa. xitaa 40 daqiiqo haddaan socdo way iga badan tahay alxamdulilah. galabkiina waxaan isku dayaa intayna mugdi noqon inaan xoogaa iska socdo, sababtoo markii hore jiim baan tegi jiray, jiimkii baan iska daayay. waxaan yacni hadda waaba adduunku waaba xidhan yahay, cidina meel ma tegi karto. laakiin waxaan aaminay markaan jiimka tegi jiray yacni iyo swimming isku yaalan tegi jiray, dabaal isku taala. marka waxaan arki jiray markaan saa uga soo baxo markii horse waan daali jiray inaan guriga iyo waxba ka qabto ma rabi jirin, aan layla hadlin baan jeclaa. waxaan kaloo jeclaa inaan cunto cuno, laakiin hadda markaan socdo biyo mooyaane cunto uma baahanayo. waxaan kaloo sameynayaa waxyaalo fara badan oo aan qof kasta dhihi karo lagu dadaalo inta aad soconaysa jirkaaga kalena exercise ku samee, garbahaaga
yacni qayb walba goonideeda ugu samee. Tusaale ahaan markaad soconaysid oo kale haddaad lugtaada aad u kala bixisid ilaa misigta oo yacni xoog lugtaada u dheeraysid camal, xataa haddaadan dheeraynin isku dayid lugtaada inaad sidii wax maaragta wax tuurayo oo kale aad lugtaada xoog u kala bixiso, miskaha meeshaas miskaha iska galaan waxaad moodaysaa inuu kuu kala baxayo. Cagahana markaad soconaysid tug ma fiicno, waxa fiican cagta meesha kabta ee laabanta in aad isku daydid iyada xitaa inaad laablaabtid oo exercise saa yacni u laablaabtid. awishinaadi arki lahaydeen gacantan ka shaqaysinaya hadda inaad lugta saa u laabtid, saa u kala bixisid meel walbo canqawa sida garabahoo kale meel walbo iskasha canqaw, waxaan ka wadaa meelaha iskale oo dhan, hadday tahay ruugaga, hadday tahay lugta cagta kabta la geliyo oo kala goyska la dhaho, hadday tahay gacanta meesha saacadda iyo udhaxaysa faraha udhaxaysa, dhulka laablaamayo dhan inaad socodsiisaan. dhulka jirhkeena meelaha loogu talagalay in la adkeeyana la adkeeyo intaad soconaysid. waxaa kaloo la sameeya mararka qaar intaad iska yara nasato ayaa waxaa la sameeya neefta waxaa laga qaataa afka, waxaa laisku dayaa inaad neefta sanka ka qaadatid yar afka uga soo daysid. waxaa kaloo fiican waa markaad intaad yare meelaha nasanaysid, waxaa kaloo fiican iyadana inaad samaysid sankaaga oo kale mid baad farta saa ugu xidhaysaa. waa marka xilliyadaad kursi ama meel yar aad ku nasanayso biyo cabaysid ama gurigaaga xitaa dhexdiisa exercise ku sameynaysid, sanka in yar baad sankaad mid saa farta u saari, ka kalaad yar neefta ku jiidaysa, afkaad kasoo daynaysaa. marka haddana kii kalaad subxaan allah, maskaxdaada waxay kuu noqonaysaa nasasho. sankaaga laftirkiisa haddaadan markasta practice ku sameynin, labada dhinac oo maaragtay labada dhinac midba aad looga neefsadaa, midna wuu xidhan yahay inta ugu badan. marka ha lagu sameeyo. aniga beriga hore saas baan xaqiiqahan jiray, intaad meelaha iska fadhisid gurigaaga dhexdiisa mid ka jiid haddana ka kale ka jiid naqaska. marka labadii sankaagii wuxuu noqonayaa labadii dhinacba inaad si qurux badan uga neefsanaysid. ilaahay waxaan ka baryaynaa neefta ilaahay naguma xidho, allahuma aamiin. isku day garbahaaga maaragtay inaad garbaha shoulderka oo kale, yacni labada shoulderskaaga oo kale inaad socodsiin kartid oo maad si wax toosinayo oo kale dhahaysid oo gacmahaas ka socon. gacmaha laftirkooda waxaa sameyn kartaa intaad soconaysid, waxaa sameynaysaa intaad saa u laabtid sidii wax ordayo oo kale. marka la ordayo gacmaha badana kor baa saas loo yara sameeyaa, kor loo yara adkeeyaa. waxaa sameyn kartaa gacmahaaga labadaada intaad saa isugu dhejisid gacanta isku laabtid baa saa isu dhaafin kartaa gadaal hor. marka insha allah aan ka faa'iidaysano. waxaad kaloo sameyn kartaa haddii aadan qof la socon ood markaa qof ku hadlaynin, waxaa kaloo wanaagsan inaad maaragtay tasbiixdaada markasta carabka iskaga haysid. markaad gurigaaga ka baxaysidna isku day inaad weyse ku baxdid. xataa culimada waxaan ka dhageystay qaarkood haddaanay xitaa gabadhu daahir ahayn oo ay weysaysato, weysadaas waxay u noqonaysaa nadaafad bay usii noqonaysaa. markaa isku day adkaartaada weysadaada inaad ku baxdid. waxaad noqonaysaa qof yacni xayndaabka ilaahay ku jira. waxaad noqonaysaa markaad adkaar ku baxdid carabkaagana aad digriga ilaahay ku haysid, waxaad noqonaysaa qof malaa'igta ilaahay ilaalinayso iyo rabbi subxaana watacaala. marka ilaahay markastaan talada saarano, adkaaraan ku baxno, adkaarna aan kusoo galno. inagoo dhan baa runtii wada adkaar socota, nolosheenuba waa adkaar socota. kitaabkeena xusli muslimka wuxuu sameynaya gebigiisaba waa badbaadada ama waa maxay tahay waa ilaalinta ama badbaadada islaamka weeyaan. marka insha allah lagu dadaalo, isku dadaala naftiina. waxaa kale oo jirta aniga raba inaan laga soo qaato dhalinyarada wadankeeni joogta, haddii ayba dhageystaan kilibkan waa laga yaabaa inay qaarkood dhageystaan, inaa wadooyinkaas oo kale dad baa saa u qurxistay. haddaan xanjo intaan afka ka saaro ku tuuro qashinka oo booliis arko waa lay ganaaxi karaa. waa lay ganaaxaya khasab, waa lay ganaaxi karaa maaha. qof hadduu arko wuu igu qaylin karaa. ilmahayga yar xitaa wuxuu dhahay hooyo waxun baa sameynaysaa, yacni ilmihii wax lagu tarbiyo. waxaan dhihi lahaa dhalinyaradeenna wadankeena iskaa wax uga qabsayno u dhisano. dowladdu haddii ay yacni xilligii inageenan dowlad ba arkinin, hadda markay dowlad dhalatayna xoogaa ay dowladdii kaafin kari laadahay dadkii iyo ummadii. qof kastoo waxaan dhihi lahaa wadankaaga yacni maxay ahayd fii sabiilillah wax uga qabso, danta guud ka shaqee. qashinka dhalinyarada marmar intay koox isku raacaan
qashinka ka ururiyaan ilaahay dartiis ha u gureen iyo quruxda bilicda wadankooda waalidiinta iyo xaafadaha kastana waxaan dhihi lahaa ku dadaala inaad wadanadiina ay wadankeena inoo ilaalisaan oo xitaa samaysataan matalan dowladaba xitaa intaa lacagay meelo kale ku bixisaa sida la sheegay inaad samaysataan yacni council xaafada in yaro xaafada xukunta hadaad idinku lacagta bishii iska ururiyo oo qashinka idinka gurtaa wadooyinka nadiifisa caruuruhu haddaan maaragtay meel qurux badan iyo maaragtay dhaxal fiicanna looga tegina waxba uma wanaagsana marka insha allah adduunka waxaan jecelahay inaynu inta wanaagsan ka qaadano horumarka ilaalinta wadooyinka ilaalinta danta guud iyo sida maaragtay qofku tiisana dhinac u qabsan karo wadanka uu joogana ama ciduu doonaba ha ahaato qof kasta wadanku jooga wadankiisii ahaynta dalkeena lagaga noqonayo inuu maaragtay maxay haytoy uu ka taliyo danta guud oo uusan xaasidnimo iyo dimidaabyo samayn mararka qaar waxaan arkaa baagaga la isugu tago kale Soomaalidu markay isugu tagaan meelo badan baan ku arkay qashinka dhulka ku daadi xitaa maamooyinka qashinka ku daadiya iska badaa inay caruurta ku yiraahdaan qaade dhulka maamooyin ku daadinayaan arkay mana wanaagsana meelihii la isugu imanayo oo dadka danta guud ka dhaxaysay oo baagaga saas quruxda badan loo guriga looga dhisi waayay in dadku ku raaxaystaan iyo caruurta yacni loogu talagalay haddii la dayaco ma wanaagsana marka yacni xataa indhaha uma fiicna waa lagu caayi karaa magac xumaad community-gaaga usoo jiidi kartaa in maanta lagu dadaalo haddii ilaahay yiraahdo maxaan kaloo rabaa inaan idhaahdo inta kale de community-ga islaamkana waa lagu caayi karaa oo wax anshax aad u weeyaan xitaa adigaaga markaad u fiirsatay bilaadanimadadan yacni macquul kula noqonaynin marka insha Allah lagu dadaalo baan leeyahay xaafadana aad baan u jecelahay dhul aad u fara badan oo lagu raaxaysto qurux badan bay leedahay anigana waxaan jecelahay fardahana aad u jecelahayo dee xag reer farda iyo xaggaas ka soo jeedeen kastoo farduhu dee diinta islaamka xitaa baal weyn kaga jiraan yacni maaragtay ay ku jiraan maasha Allah haddana fardaha aad baan u jecelahay aad ayaan u jecelahay fardaha halgankii jihaadka ka soo qaateen baynu ognahay inta deylaha haddana ay diinta meelo badan kaga jiraan waxaa kale oo jirta marka masiixi tijaal soo baxo 10 wiil oo farda fuulo ah oo xataa farduhu qoobkooda iyo salaantooda ay ka duwan tahay fardaha kale iyo 10 wiil oo inta wiil faras fuusha ugu fardayo farda fuul yaqaansan baa maalinta masiixi tijaal soo baxo ilaahay inaga xilliga ayna mataajiye ayaa ka hortagi doona marka farduhu aad bay wanaagsan yihiin inkastoo xitaa xoolaha kale geel oo kale ilaahay quraanka ku amaanay haddana fardahana aniga aad baan u sii jecelahay runtii xaqiiqatan xoolaha yacni xawayaanka ilaahay abuurtay oo dhan baan jecelahay laakiin fardaha iyo geela waa ka jecelahay marka ilaahay ha idin wada jeclaada idinkana dhammaantiinba xoolahana meel kasta joogaan wadan kasta iyo dibadal iyo dibad ilaa wadankeeniina ilaahay waxaan ka baryaynaa kuwa ilaahay uga baqa ilaahay inuu inaga dhigo xanaaneeya socodka yar baan maanta soconayay meeshan aad baan u jeclahay inaan ku lugeeyo waa dhul aad qurux badan aad maaragtay lagu raaxaysan karo weliba meesha jayga dhagaxa kule waqooyiga jay baa la dhahaa oo aan ahayn laamiga sibirka laamiga waxaa ka fiican meesha dhagaxa in lagu socdaa ka fiican oo ka raaxa macaan aad u fiican yacni xataa maskaxiyan xataa jirkaaga sibirku dadka wuu jiitaa waxa magnad camal oo kale jiitaa ku jira oo lagu daali karo laakiin meeshaas dhagaxa laguma daalo waana meelaha marka fardaha wax la siinayo meesha waxa weeye meeshan faam baa ku yaala marka faamkaas wuxuu leeyahay meelaha baabuurta cuntooyinka siisiya marka fardaha ay ka gruuba meeshan ku xareysan waa meel aad u weyn subxaanallah oo luguma kala gaari karo yacni meel oo meelaha oo ay xawayaan ku xareeyaan meel aad bay inta badan qurux badan tahay maasha Allah tabaarakallah barnaamijkan wuxuu ahaa barnaamijka Soomaaliya ka socon jiray ukhti ila luge buu yahay intaasna ayaan insha Allah rabaa inaan ku gabagabeeyo hadalkaygu waa dheeraaday waqtiga iyo timeka aan ka faa'iideysano biidmillaahir raxmaan maalin walba waa maalin cusub haday fursad ku yeelato ay maanta ku soo marto berri kuma soo marayso maalintina maaha magacii un bay wadaagaan maalintii maaha waa maalin kale oo cusub hadaynan ka faa'iideysanina waqtigu isaga inaga faa'iideysanaya marka insha Allah